hay-adda wadaniga ee Waybiir oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa maanta magaalada Burco si rasmi ah ugu soo gabagabaysay tababar qaar ka mid ah dhalinyarada kala duwan ee gobolka Togdheer. Ujeedka tababarkani ayaa ahaa kuwa dhalinyarada gobolka Togdheer lagu tababarayay muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo waliba inay ka qaybgalayaasha tababarkaasi inay noqdaan wakiilo ka shaqeeya nabadda. Tababarkani oo socday muddo 2 cisho ayaa ahaa mid ay ka qaybgalayaasha tababarkaasi ka faa'iideysteen muhiimadda ay bulshada reer Somaliland u leedahay ilaalinta adkaynta iyo sugidda amniga Somaliland. tababarkan ay qabatay hay'adda wadaniga ee Waybiir oo ahaa mid ay ka qaybgalayeen in ka badan 35 xubnood oo ka mid ah dhalinyarada kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa ugu horreynba waxa tababarkaasi faahfaahin ka bixisay Aamina Mahdi Maxamed oo ah wakiilka hay'adda wadaniga ee Waybiir ee gobolka Togdheer waxaana sharaxaad dheer ka bixisay muhiimadda uu tababarkan u leeyahay guud ahaan bulshada reer Somaliland. ilaahay mahadi waxa ay hay'adda Somaliland Waybiir soo agaasintay tababar iyadoo kaashanaysa hay'adda internationalka UNFPA tababarkan oo loo qabanayay dhalinyarada gobolka Togdheer qaybahooda kala duwan tababarkan ku salaysnaa ama mucdiisu ahayd in dhalinyarada lagu tababaro muhiimadda ay leedahay nabaddu iyo in ay noqdaan wakiilo ka shaqeeya horumarinta nabadda bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burcana dhalinyaradiisa kale ay ku dhiirigeliyaan sida nabadda loo ilaashan lahaa iyo nabaddu faa'iidada ay leedahay iyo cawaaqibta ay keento in ay colaadi ay soo dhaxgasho dhalinyarada ama gobolka magaalada Burco. Walillahi alxamdu tababarku wuxuu socday shalay iyo maanta wuxuu noo soo dhamaaday maanta dhalinyarada ka qayb qaadatay waxay haayeen 35 qof oo ka mid ah ka kala yimi qaybaha kala duwan ee bulshada. halkan waxay noogu soo dhamaaday tababar socday 2 cisho tababarkaas oo loo qabtay 30 dhalinyaro ah 30 ka dhalinyarada ah oo wakiil ka ah dhalinyarada ku nool gobolka Togdheer waxaana la baray sidii ay u noqon lahaayeen dhiirigeliyaal nabadeed dhiirigeliyaasha nabadeed oo ka qayb qaadanaya ammaanka iyo xoojinta nabadda gobolka Togdheer. waxay qaateen dhalinyaradaas casharo ku saabsan sida nabadda loo dhiso sida loo ilaashado waxyaabaha fakariska ama qodobada dibadda ka riixa nabaddaas inay meesha ka baxdo sidoo kale qodobada dhiirigeliya nabaddu inay sii waarto sida khilaafaadka loo xaliyo oo si looga fogaado violence-ka dhan ama tacadiyada dhan iyo qasaska oo dhan waxa la baray sidii ay u dhiirigelin lahaayeen nabadda sidoo kalena ay khilaafaadka iyo uga fogaan lahaayeen violence-ka oo dhan sidoo kale waxay dhalinyaradaasi barteen skills-ka ama xirfadaha muhiimka u ah as a peace builder ahaan ama peace promoter ahaan waxyaabaha muhiimka u ah skills-ka attitudes-ka iyo knowledge-ka looga baahan yahay inay iska xoojiyaan si uu qofkaasi u noqdo qof u tababaran inuu nabadda markasta dhiirigeliyo. dhalinyarada waxaanu qayb ka noqon doonaa maanta laga bilaabo inaan promoter baan u noqon doonaa nabadda Somaliland si gaar ah waliba gobolka Togdheer waxaan si gaar ah iyo si guud ugu mahad celinaynaa hay'adda Somaliland Waybiir dhalinyarada Somaliland mar walba la barbar taagan dhiirigelinta haday tahay training iyo haday tahay dhanka awareness wacyigelinta gobolka Togdheerna waa faa'iido u soo korodhay maadaama ay gobolka Togdheer gacan weyn ka geysatay dhanka horumarinta nabadda waxaan kala shaqeyn doonaa dhanka horumarinta nabadda maanta laga bilaabana waxaan u noqon doonaa garabkooda annagoo mar walba garab u noqon doonaa wakiilada dhalinyarada Somaliland ee wakiilka ka ah horumarinta nabadda iyo xasiloonida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. gudoomiyaha maxadka shaqaalaha dawladda gobolka Togdheer Maxamuud Siciid Cadaad ayaa dhankiisa ka qaybgalayaasha tababarkaasi halkaasi ku siiyay tababar la xiriira muhiimadda ay nabaddu u leedahay guud ahaan bulshada reer Somaliland. aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa bahdan Somaliland Waybiir sababtoo ah Somaliland maanta waxa ugu weyn ee ay haysataa waa nabadgelyadana runtii tiirarkeeda waxa ka mid ah in dhalinyarada la engage gareeyo ama dhalinyaradu ay noqdaan kuwa qayb ka ah hannaanka dawlad dhiska. marka mawduucan runtii ay soo qaban qaabiyeen ah dhalinyarada iyo sida ay saameyn isugu leeyihiin xagga kobcinta ama kor u qaadista nabadgelyada runtii waa mid waqtigiisii jooga baan leeyahay. mawduucyadan oo kalena runtii maartay la dhiirigeliyo kor loo sii qaado ayaan ku boorinayaa hay'adaha kala wadaniga iyo kuwa caalamiga ah maadaama ay ku noolnahay gobol runtii xasaasiya nabadgelyadiisuna inta badan iska tahay fragile ama mid nugul ay tahay
dhalinyarada markasta oo ay faham wanaagsan u yeeshaan sidii kor loogu qaadi lahaa nabadgelyada loogana sheekeeyo marxaladii kala duwanaayo taariikhdii ay soo martay nabadgelyadu waxay budhig u noqon kartaa runtii in la sii xoojiyo oo kor loo qaado nabadgelyadan maanta lagu naaloonayo. ugu dambeyntii hay'adda wadaniga ee Waybir ayaa muddooyinkii u dambeysayba guud ahaanba gobolka Togdheer ka waday tababaro ballaaran kuwaas oo u qabanaysay dhalinyarada kala duwan ee gobolka Togdheer. Waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland, Burco.